Madaxweynaha xilka Kasida ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magacaabay guddiga qabanqaabada xil wareejinta madaxweynaha. Guddiga ayaa waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Dr. Maxamed Cabdulaahi Ciise, waxayna ka shaqeyn doonaan munaasabadda xil wareejinta iyo wax kasta oo la xiriira. Farmaajo ayaa guddigan faray inay si degdeg ah u diyaariyaan maamuusadda xil wareejinta xilli uu maanta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha dooran ee Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka oo dhacay barqanimadii maanta ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa is-xog wareysi iyo soo dhoweyn sida ay inoo sheegeen ilo xogaal ah. Qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay isaga xog wareysteen xaaladda guud ee dalka, sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa geedi socodka dowladda dhiska Soomaaliya iyo dardargelinta dadaaladii horumarineed ee dalka ka socda 5 sano ee lasoo dhaafay. Si kastaba, tan markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulamo wada tashi ah magaalada Muqdisho ka waday, isaga oo shalay qaabilay taliyayaasha ciidamada qalabka sida. Guusha madaxweynaha cusub ayaa si aad looga falceliyay, iyada oo dowladaha taageera Soomaaliya ay bogaadiyeen qaabkii ay u dhacday doorashadii uu ku soo baxay.